فرعون ودلك دنبا waxaa la wuxuu ku soo galay baa la yiri safar buu ku yimid wadanka dhanba wuxuu arkay wadan musuqmaasuq lagu wada nool yahay oo nin walba askari walba madax walba meeshuu joogo uu dadka iska dhaco cuno markaas uu fikro boos banaan buu ka eegay wuxuu shaqadee banaan wuxuu qabuuraha banaan buu wuxuu bilaabay qabriga albaabka laga galayo intuu gogol dhigto qof alle qofkii meeyay qabuurta la gelin lacag ka qaado kuwi madax ubadkooga ay dhinteen lacag badan buu ka qaadaa waa yaa tahay lama yiraahdo laana wadanka dhanba ku nool musuqmaasuq nin walba meeshuu joogo wuxuu dadka ka qaato iska cunaa marka isaga oo garaabeen waxa dhahay kana haduu qabuur dul fadhiistay wuxuu doonaa ha iska cunoone ilaa baa boqorkii dhanay wadanka xukumayay ilmihiisa baa dhintay markuu arkay fircoon madax iyo inta Soomaaliyeed ciidan buu shurtaag isbaaradiisu buu dhigay haye inta soo lacag wad bixsan weena lama aasiimid waa boqorka inankiisa waxa dhintay yeelkadii buu halka ana ka boqor buu qabuuraha boqorkii baa warsiya wuxuu doonay waa la siiyo lacag dhan baa loo tuulay markuu boqorku qasrigiisa ku noqday buu fikro wuxuu yiri war ninkii dhanaaye anakoo dalka xakuno oo ciidankii dawladii leh qabuuraha nagaga qaaday cashuurta bal u yeedhay ayaa dartay ninka waa loo yeedhay fircoon boqorka ku doonaya laga yiri maalintuu shaqada bilaabay ilaa joogada maalinta uu joogo wuxuu lacag u riibay fircoon wataada leeyahay sanduuq dhan oo lacag ah boqorka ku yeedhay hortay way ka shaqada ayaa ku dirtay shaqada dalkan u shaqeeyay buu anigu danta guud baan u shaqeeyaa وبعد هاي صاد هو كم حال عقول ريب وراي وخر كيف الورد ماشى العقبة بتعلى ها نص نادي قال نص نادي قال لي واتشقف في عنتها يقول هذه قال كانوا وجود دين ما يجي دولة ده تكون صوبير يا سيد سال عقد الله سما يعتقنا بودي حال كاسو فرعون قال الدولة دي ربنا إسرائيل بني إلى مركز ده ما بقر كده نمر كده ماشي زقول له وريو